السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن داوديال waxaad ku soo dhawaataan xalqo kale oo kamida barnaamijka waa noloshaada oo aan aalaaba ku soo qaadano mowduuciyo aanu isleenahay waxay shidaal u noqon karaan dhalinta Soomaaliyeed ee nolosha halganka adag kula jira. xalqadan maanta ka sheekeynayna waxa la yiraahdaa The Power of Trying oo macnaheedu yahay awoodda isku dayga uu leeyahay ayaanu ka warrami doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. inta badan barnaamijka halkan waxa idin kala socodsiiyay anigoo ah tababare Cabdilatiif Xirsi. marka haddaan u guda galno mowduucan maanta ka warramayno ah ahmiyadda isku dayga uu leeyahay ama awoodda isku dayga uu leeyahay waxa laga yaabaa maanta geyigeena in laga helayo qof dhalinyaro ah oo noloshiisa kala bar ay ku sii dhowdahay haddii dib loo baaro noloshiisana aan la soo helayn waxyaabo badan oo nolosha uu isku dayay aanu la soo helayn waxa sidoo kale suuragal maanta in la helayo qof dhalinyaro ah oo 30 jir meelahaas cagacagaynaya walina aanu wax cusub isku dayin in la helo ayaa suuragal ah. marka taa waxaan isleeyahay waa waxyaabaha keeni kara inuu hoos u dhaco ama inuu yaraado hal abuurka iyo ikhtiraacka dhalinyarada Soomaaliyeed. marka anagoo marka taa ka duuleynaa waxaan ka sheekeynaynaa ahmiyadda isku dayga ama tijaabada waxa loo yaqaano ay qofka dhalinyarada ugu fadhisa ayaanu ka sheekeyn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. marka waxaan ku bilaabaynaa mowduuceena maantay isku daygu ama trying-ku ahmiyadda qofka dhalinyarada uu ugu fadhiyo ama ahmiyadda uu leeyahay ayaanu ku bilaabaynaa. pointiga koowaad aan ka sheegaynaa wuxuu yahay isku daygu ama qofka markuu wax isku dayo wuxuu isku daygu banaanka keenaa qofka hibadiisu banaanka keenaa ama wuxuu keenaa qofka inuu dhadhamiyo karaankiisa ayuu suuro geliyaa isku daygu. waxa laga yaabaa waxa ku sawiraneed ku haminayso inay macaan yihiin iyo inay kharaar yihiin inaadan waxba ka ogeyn baa laga yaabaa laakiin waxaad ogaan kartaa waxaas macnaha ay ku fadhiyaan markaad isku day la timaadi markaasaad ogaan kartaa. qofka markuu istijaabiyo ee uu wax cusub isku dayo ama uu sameeyo waa uu ka duwan yahay qofka aanu waxba isku dayin waa uu ka duwan yahay. qodobka labaad ama qodobka xiga ahmiyadda isku dayga uu leeyahay waxa kamid ah waxyaabaha qofka uu ka helayo markuu wax isku dayo waxa kamid ah kalsooni nafeed buu helayaa. kalsoonida naftuna waxay kamid tahay baalasha ugu muhiimsan ee qofka uu ku duuli karo ayay kamid tahay oo qofka haddaanu inta badan kalsooni lahayn waxa laga yaabaa resource kasto uu haysto inaan waxba ku qaban ayaa laga yaabaa. kalsoonida marka waxyaabaha dhisi kara waxa kamid ah qofka kalsoonidiisa kobcin kara waxa kamid ah qofku markuu wax cusub isku daya ayaa kamid ah. qodobka xiga ahmiyadda uu leeyahay isku daygu ahmiyadda uu leeyahay waxa kamid ah waa starting point waa meel wax laga bilaabo oo qofku uu arin cusub uu hore u bilaabi karo. waxyaabaha sidoo kale ahmiyadda qofka uu ka helayo isku dayga waxa kamid ah wuxuu ku suuro gelinayaa isku daygu in xayndaabka nololeed aad la qabsatay ama xayndaabka sida caadiga ah aad ula qabsatay inaad banaanka uga baxdo oo waxyaabo cusub aad tijaabiso ayuu isku daygu ku suuro gelinayaa. marka xayndaabkaas haddaan wax yar ka sheegno ama haddaan wax yar ka dhaano waxa la leeyahay qofka dhalinyarada maanta waxyaabaha noloshiisa burburin kara waxa kamid ah qofku inuu iskaga noolaado ama iskaga jiro zoonka caadiga ama zoonka raaxada inuu iskaga jiro halkaas oo qofku challenges aanu kala kulmayn. haddaanu qofku challenges la kulmayna waxay u badan tahay inaanu casharro cusub baran bay u badan tahay. marka isku day markaad samaysid taa macnaheedu wuxuu yahay zoonkii aad ku jirtay baad banaanka uga baxday marka waxaad la kulmaysaa challenges cusub baad la kulmaysaa challenges cusub haddaad la kulantana casharro cusub baad baranaysaa. then arrinka ugu weyn ee markaa dadku ama dhalinyaradu ay uga baqaan inay wax cusub isku dayaan wuxuu yahay qofka inuu ka baqo waxaas uu isku dayayo inuu ku guul dareysto. marka laba qodob oo kooban arrintaas ku soo gabagabeynina qodobka koowaad ee qofka ka walwalaya waxa uu isku dayayo inuu ku fashilmo loo sheegaya wuxuu yahay waxa la leeyahay weligaa ha ka baqin inaad fashilanto ama inaad arrin ku guul dareysato ha ka baqin laakiin waxaad ka baqdaa inaadan wax isku dayin ka baq. qodobka kalena wuxuu yahay waxa la leeyahay qofka inta uu wax isku dayayo ee trying-ka uu ku jiro halganka uu ku jiro ma guul dareysanayo. thank you.